dadkeenu badanaa waa oral society xog ama macluumaad ay ku nool yihiin laakiin in badan oo kamid ah way ku qaldamaan ama xog aan jirin bay wax ku dhisaan ama xog jirta ay sidii loogu talagalay aysan uga shaqeysin marka ugu horeyso oo xogta aad helaysid waa information waa macluumaad informationku marka uu ku soo gaaro waa macluumaad kala firdhisan oo markaas wax aan isku xira aan lahayn ayaa hortaada imaanaya ayaa hortaada la keenaya waa lagu sheegaya waa maqlaysaa qof baa kula hadlaya wixii marka waxa loo baahan yahay stepka koowaad inaad kaliya u qaadato xog ama macluumaad ama information inuu yahay stepka labaad waxa weeye inaad wixii aqoon iyo cilmi aad ka dhigto sidaad uga dhigaysid waxa weeye haddii aad adigu qof aqoon leh tahay waxa loo baahan yahay dots inaad isku xirxirtid ama laymanka isku gigeysid wixii macno sameynaya asla qaadid wixii isku dhajin karo isku dhajisid haddii marka awooddaas aad lahayn waxa loo baahan yahay inaad la kaashatid qof qabiir ah saaxiibka walaalka qof aad wax ku tuhmaysid macluumaadkaasan hayaa informationkaasan hayaa niyahow maalmihii lasoo dhaafay oo dhan baa waxaas maqlayay inaan isku geeyaan rabaa oo macno aan ka soo saaro marka knowledge inaad isticmaashid ayaa loo baahan yahay cilmi iyo aqoon inaad isticmaashid ayaa loo baahan yahay stepka saddexaad oo dadku badanaa aysan u gudbin waxaa weeye wixii inaad ka dhigtid wisdom ama xikmad inaad ka dhigtid wey xikmad maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wixii inaad qurxisid oo markaas wixii uu ahaa aad ka soo saartid wixii loogu talgalay aad ka soo saartid tusaale meeshan waxa yaala taleefankan markii la sameynayay macluumaad iyo xog ayaa lagu sameeyay mar labaadkii dad khubara ayaa loo yeeray oo waxaa laga soo saaray in fikradii markaas macluumaadka ahayd in la isku dhajiyo ugu dambeysayna xikmad ayaa laga soo saaray wisdom taleefan la isticmaalayo oo maanta wax walba uu ku dhex jiraan oo qof walba uu wato waxyaalo badan loo isticmaali karo marka fikradda aan rabo maanta inaan la wadaago waxa weeyaan in markaad macluumaad heshid saddexdaas step aad marsiiso 1 iyo 2 iyo 3 waxaan rajeynayaa in aad wax ka faa'iideen wixii su'aal ah wixii falanqeyn waa xaqiina waxaan idinka tegayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh